وهاجاك داود يال ميل كستو إذن شوكتان دورشوينكي جمهورية سوماليلاند كوب iyo 30 bisha May ka dhacay ayaa guud ahaanba shacab aad u tiro badan ay safaf dheer ugu jiraan sida ay codkooda u dhiiban lahaayeen isla markaasna qofka ay doonayaan ay u codeynayaan taasina waxay ka mid tahay dimuqraadiyadda guud ahaanba shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay haystaan muwaadin ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliland oo barbarkayga taagan dareenkiisa weydiin doona walaal goobta goorma timid walaal waxaan imi saakan meeshan goobtan imi anigu meeshan kii waa suuqa bartikeedii xaafadda New Hargeysa ka imi halkan khayradan ku qornaa maanta baabuurta walaal joojinta waan soo lugay de wallahi aad baan u faraxsanahay maanta inaan qofka anigu aan doonayo waxaan ka arkay codbixinta qofka anigu aan doonayo saaka u codeynaya farteedana ugu codeynaya baarlamaanka ana u codeynaya deegaanka labada qof anigu aan sidoo u doortay maanta aan aqoon ku tuumayo kii caasimada wax ka bedeli lahaa ayaan maanta doonaya inaan codeeyo marka dareenka ka horan saaka markaad soo kacday ilaa inta soo socotay xaruntani goobtan aad timid ilaa inta soo socotay dareenka soo wallahi aad baan u faraxsanahay xalay ma saxanba waa umka hooyadii waan soo gaxinay bartana hooyada geeyay way ka codanaysaa aabba sidoo kale saaka uu soo tagay xaafadda wada timi qof kasta qofku doonaya ee family-ga ayuu codanaya aadna ugu faraxsanahay waayo wadankayga hooyaan jooga nabad baan saaka soo toosay nabad baan ku soo lugayay waan codanaya markaan codayna toos ku xaafadda waan ku noqonaya maxay kaga duwanta doorashooyinka hore والله waxay kaga duwantay horta siyaab wax badan bay kaga duwantay qof kastaaban isagoo dib ankasto markasta aan soo codeyn jirnay inagu habiyo soo wada codeyn jirnay laakiin markasta waxaad sii kala ogaan waxa meesha ka baxay qabyaaladii iyo qof kasta qofku doonayay iyo lacagti wallahi inaan biyo ku maanta waxaan ku diidan lacag ku codeeyo inaan $200 qaato inaan $100 qaato waayo waxaan in dhalinyarada caasimadda u soo kacaya waxaan doonayaa qof caasimadii wax ka bedela oo caasimadda hadii aanu qaban arkay caasimadii soo wax ka bedelay aniga waxba qabto marka taasan maanta ma ku faraxsantahay in marka codkaagu wax bedelayo aad baan ugu faraxsanay waa maalin badan sugay koobiye 3 May aad baan ugu faraxsanay wallahi inaan adarkay codeynay waan ka haray dhamaantoodii family-gayga maanta waxaan codeynayaa nin reer Soomaaliland aan isku qabiil ahayn aanan waxba ayaan u codeynayaa marka aad baan ugu faraxsanay magaca ku bilaabay dareenka ka hor saaka magacayga waxa la yiraahdaa Hadlay Abdi Yusuf dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay alxamdulillaah rabbil caalamiin saaka waxaan soo kalaalay markii salaadii subax laga soo baxay alaanana wanaga taagan alxamdulillaah kayugan ku jirnaa dareenkayguna aad iyo aad buu faraxsan yahay halka waxaan ku jirnay imka saddexdeeda qof ay isku xigay saddexda xisbi baan kala ahay kayga horeeya u cid buu ahaa kayga dambeeyana kulmiyahaana wadani baan ahaa caagad biyana wada cabayn alxamdulillaah rabbil caalamiin dareenkaas muxuu muujinayaa dareenkaas wuxuu muujinayaa dal jacayl iyo wadaniyad jacayl buu muujinayaa inaan dunida fariin u dirayno ayuu muujinayaa doorashooyinka Soomaaliland ee isbarkan ee wakiilada iyo deegaanku fariin noocee dirayaan waxay furayaan fariin xambaarsan inaanu nahay qaran jira ayay u diraysaa beesha caalamka iyo dunida waa u diraysaa walaalahayaga Soomaaliyana waxaan u sheegaynaa walibana shacabku waa dad wanaagsan siyaasiyiinta waxaan u sheegaynaa war kala tagnaye aan kala qooma malaano waxaad kaloo iga warantaa marka laga hadlayo safka sad ugu jirtaan iyo sidaad isku ixtiraamaysaan shacabka Soomaaliland say ugu bislaadeen ka waran arrimaha doorashooyinka waniga ku sheegaya aan ku leenahay saddexda xisbi qaran baan kala hayn saddexdeeda isku xigaa wadani kulmiye iyo cid baan kala hayn isku safna waan ku jirnaa haddana xabada biyo saxaabanu seebsano waan wada cabayna waniga ku sheegay dareenka marka dareenku aad iyo aad buu wanaagsan yahay madaxweynihii Soomaaliland baan ugu yimi oo lugaynaya oo iskaafna la socon labadii xisbiye kala loo yimi ee Cabdiraxmaan Cirro iyo Faysal Cali Waraabe aan cidina iskaafna la socon baan loo yimi marka dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay dalka Soomaaliland waxaan rajaynayaa in doorashadan ay noqoto mid u horseeda aqoonsi caalami ah alxamdulillaah kulli waxbaan isku yara dayan lahaa waxaad midhaha tirsan maxaa kamid ah maansooyinka kamid ah maxaad ma haysaa maanta waxaan hayaa maansayro qaran aan ugu magac daray waxay odhanaysaa qarankaygan tashadee qayrkii ka horu maray qasab iyo jujuub iyo qabsi iyo anaaliyo qaybqaybta ummadiyo qaxar iyo dhibaatiyo qoloqolo ka maarmee qodob u geeyee qalaalaase iyo qurun bulsho qaybsanaatiyo qoys ka madhanye qalin qura wadaagee qabyaaladi ka dheertee qaadirkood baryaya qarankayga weeyaan qarniganna waxaa wata madaxweyne qumanoo aan qallafsanaynoo qowlkiisu yahay ballan qaniyow allahayow qarax iyo dhibaatiyo kii qarawaayo ee lumay qoorgooyihii kibray qiilka kuwii samaystee qoryihii iyo bambada watay qiiqa kuwii qayuumnaa qanaaciyo lahayn hadaf khasaaruhun u taagnaa qudha shacabka jarayee qumacuu ridaayee rabbigood ka quustee diintana qalloocshee kala qubay qur-aankee nimcadii ku qooqee qabrigoodu gubayee qabta uun isgeliyee quwadduun isbadayee qaska uun ku ciil baxa qafaaroo raxmaanow quladaana geesmari quus mar aan hayno dhibka aan la qaxayno qamandida cunayno qarqarrada dalkaygani qofba meel carariyo dhulka quraca jiifiyo
qodaxdaba uu marayo dhex jibaaxi jiray qansax ayay taariikhdu qoraysaa qaamuuskana igu taal qaamuuskana igu taal maxaa rag la soo qalo maxaa la qafaashi qaar maxaa mar la soo qodo quudkuba uu yaraa qadoodigu u badnaa qardhacba cidi aan ahayn wixii qarash soo burburay khasaare inugu filan qaaradaha adduunkow qaramada midoobow kuwa quwadda sheegtow maad qirtaan dalkaygoo qumaatuunu sheegtaan calankaygan qaaliga qacba ha yidhaahdo haba quusta nacabkee magacaaga adoo ku bilaabaya dareenkaa ka warsaaka bismillaahi raxmaan raxiim magacayga walaal waxa weeyaan yuusuf xasan axmed dareenkayga wallaahi maanta ma soo koobi karo aad buu moogtay shucuurteeda u dheer tahay waayo sababtoo ah maanta waa maalin aad inugu weyn 11 May 1960 waa maalintii ay asanam soo gashay moogtay Soomaaliland Hargeysa sidoo kale 11 May 2001 waa maalintii ummadda Soomaaliland u codeysay afti inaynu ka go'no wixii la isku oran jiray Soomaaliya marka maantana waa adiga arkay waa maalin qaali ah maantana 11 May baa la taagay 2021 oo doorashadii golaha deegaanka iyo tii golaha wakiilada oo isku sidkan ayaa la qabanaya marka dareenkaygu maanta aad iyo aad buu u dheer yahay aad iyo aad baan moogtay u soo dhaweynaya shacabweynaha Soomaaliland ugu horreynna ilaahay baa mahadle wax ilaahay lagu mahadnaqo weeyaan moogtay nabadda iyo caafimaadka aynu ku codeynayno ummadana waxaan leeyahay xasiloonida iyo nabadda hala ilaaliyo aad baan u mahadsantahay aad u mahadsantahay doorashadan maxay ka duwan doorashooyinka hore doorashadan horta wallaahi doorashooyinka hore waxay kaga duwan tahay horta waa laba doorasho isku sidkan tii deegaanka tii wakiilada marka culeyskeegana way leedahay moogtay oo tii deegaanku waxay hayde markii hore doorasho kaliyaata laakiin tan tu kala ku lamaano tii wakiilada waxaana la doonayaa dee xildhibaan golaha deegaanka iyo mid baarlamaanka marka waxaanu rajaynaynaa insha Allah bismillaahi kariim xildhibaano wanaagsan oo ummadda moogtay sharcigeegii iyo nidaamkeegii iyo waddo sax ku haga oo kuwii baarlamaanka iyo kuwii deegaanka oo caasimad wanaagsan oo clean oo nadiif oo dee moogtay lagu hirto caasimadihii geeska Afrika noqota aynu doonaynaa insha Allah inaynu noqono